ونهانتي دتكو اسكو جيران تيك توك بدنا waxa u badan sida qaalibka laba kafadood bay leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala laba kafadood buu sameeyay faman thaqulat mawazinu waman khaffat mawazinu labada kafadood ay tiktokuna leedahay kafad khayrka Allah saara kafadna sharka Allah saara daaciga weyn Sheekh Xuseen Cali Jabuuti iyo sidoo kale Mukhtaar Maxamed Xasan halkay isaga eegyihiin daaci Mukhtaar waa shakhsi dhalinyaro ah isla markaana barta TikTok uu leeyahay waxa uu ku soo gudbiyaa fariimo u badan wacyigelin waxaana uu sheegay in isagoo dhalinyaro ah uu doortay in bulshada u soo gudbiyo fariimo ku aadan wanaagga iyo sidoo kale in dunidan wax qiimo aysan lahayn balse ay ka fikiraan aaqiradooda waxa daaci Mukhtaar dhawaan muuqaal uu soo galiyay bartiisa TikTok waxa uu ku sheegay inuu aad u xiiseenayo gabdhaha ku nool qurbaha taasna waxa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay dad badan laakiin daaci Mukhtaar waxa uu sheegay inuusan kala jeedin arintaasi si sax ahaan laakiin uu kaftamayo kaliya balse xitaa uusan jecleen isla markaana uusan daneyneynin in afarta xaas isagu u banaan waaba hadii uu guursanayo in dhamaantood xitaa hadii ay haystaan baasaboorro wadamo ajaaniba inuusan dooranin inuusan qurbaha u raacin iyaga laakiinse kaliya uu ku qanacsan yahay joogitaankiisa Afrika waxa sidoo kale daaci Mukhtaar uu tilmaamay in falcelin kala duwan uu kala kulmo bulshada uu fariimaha isagu u gudbiyo waxa uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad aad isaga ugu tixan bartiisa TikTok kuwaas oo ammaan iyo sidoo kale wanaag iyo dhiirigelin u soo dira fariimo la xiriira laakiin waxa uu cabiray in ay jiraan shakhsiyaad caayda iyo sidoo kale aflagaadada koow ay u tahay oo kala jeedo in badiba markuu ugu horeyso muuqaalkiisa ay arkaan ay aflagaadeeyaan isaga waa sida uu sheegay hadallada ugu badan ee dhigiisa ku dhibcana ay yihiin waa sida uu tilmaamay caan raadis ayaa tahay iyo sidoo kale fariimahan kaamaan kuwa saxan iyo dana gaar ayaad leedahay magac ayaad ku raadinaysaa arintan ee kaamahan in dhalinyarada diinta si wanaagsan aad u sii gaarsiisid balse intaas waa ka sheekaynta falcelinta iyo hadalhayntiisa daaci Mukhtaar iyo sidoo kale waxa uu kala kulmo bulshada ku xiran bartiisa TikTok balse markaan waxaan soo bandhigi doonaa meelaha isaga egyihiin daaciga weyn Sheekh Xuseen Cali Jabuuti oo badankeena aan wada garanayno sheekhaasi badi dadku waxay sheegaan in daaci Mukhtaar ay isaga egyihiin Sheekh Xuseen Cali Jabuuti codka iyo sidoo kale hadal jeedinta dadka badina waxay yiraahdaan xagga hadal jeedinta Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayuu Mukhtaar kaga daydaa waxaana ognahay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti inuu ka tirsan yahay jameecada tabliiqa balse sidoo kale waxa uu sheegay daaci Mukhtaar isagan in qayb uu ka yahay isla jameecadaasi fariimaha uu soo gudbiyay mararka qaar waxa uu tilmaamaa inuu kala kulmo falcelin aad u xoogan oo kaga imaanaysa xagga bulshada waxa uu sheegay mararka uu soo qaato dumarka isqaawiya ama jirkooda sida xun u soo bandhiga in durba uu la kulmo shakhsiyaad caynaya isaga marka uu soo qaato ka hadalka heesahana waxaan la kulmaa ayuu yiri falcelin xanuun badan oo iga imaanaysa xagga bulshada laakiinse qofka qayrkaas aan faafinaya taageersan haddii uu yahay hal qof ama laba qof labadaas qof ayaa ugu filan ayuu fariintiisa ku soo koobay daaciga dhalinyarada ee Mukhtaar